Assalaamu calaykum. Maxaa ka cusub Gaza iyo maanta? Ilaha caafimaadka ayaa Al Jazeera u sheegay in ugu yaraan 35 qof lagu dilay weerarka Israa'iil ee Gaza tan iyo horaantii Arbacadii, waxaana la soo sheegayaa in duqeymo khasaare badan geystay saacadihii la soo dhaafay ay ka dhaceen Gaza. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii 5,000 oo qof ay barakaceen ama mar kale la rujiyey Gaza tan iyo markii Israa'iil ay jebisay xabajoojintii Xamaas ee 18 Maarso. Wasiirka Difaaca Israa'iil Katz ayaa sheegay in siyaasadda dalkiisa ay caddahay ka hortagga dhammaan gargaarka bini'aadanimo ee Gaza ay tahay qalab lagu cadaadinayo Xamaas. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 51,025 Falastiini ah la xaqiijiyey inay dhinteen, 116,432 ay dhaawacmeen dagaalka Israa'iil ee Gaza tan iyo markii uu bilowday 18 bilood ka hor. Xafiiska warbaahinta xukuumadda Gaza ayaa cusboonaysiisay dhimashadeeda in ka badan 61,700 isaga oo sheegay in kumanaan qof lagu la'yahay burburka hoostiisa loona maleynayo inay dhinteen. Ugu yaraan 1,139,000 qof ayaa lagu dilay Israa'iil intii lagu guda jiray weerarkii Xamaas ay hogaaminaysay Oktoobar 7, 2023. In ka badan 200 oo qofna waa la qafaashay. Iyadoo Israa'iil ay sii wado weerarada ay ku hayso Gaza iyo duulaanka militari ee ka wado daanta galbeed oo la haysto kumanaan Falastiin ah ay ku jiraan caruur ayaa weli ku jira xabsiyada Israa'iil kuwa oo aan wax dembi ah lagu soo oogin. Ma ahan dhacdo cusub. In ka badan 800 oo Falastiin ah ayaa Israa'iil xabsiga dhigtay tan iyo markii ay qabsashadeeda bilaabatay 1967. Falastiiniyiinta Islaamic Jihad (PJIG) ayaa ku baaqay waxa ay ku sheegtay in ay tahay laba wajiile cad oo xishood la'aan ah, kuwa dalbanaya sii deynta maxaabiista Israa'iil ee Gaza, laakiin iska aamusay iyadoo kumanaan Falastiin ah ay ku jiraan xabsiyada Israa'iil oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Bayaan ay soo saartay maanta oo lagu xusay maalinta maxaabiista Falastiin, PJIG waxay ku sheegtay in bulshada caalamka ay ku xushmaysay aamusnaantooda ku aadan dhibaatada 10,000 oo maxaabiis ah oo Falastiin ah taasoo socotay 10 sano. Dhawaad 10,000 oo Falastiin ah oo kooxaha taageero ay sheegeen in lagu hayo xabsiyada Israa'iil. 3,498 ka mid ah ayaa lagu hayaa dacwad la'aan ama maxkamad la'aan. PJIG waxay sheegtay in 400 caruur ah iyo ku dhowaad 30 haween ah ay ka mid yihiin kuwa la hayo, halka ilaa 2,000 oo qof oo reer Gaza ah ay xireen ciidamada Israa'iil tan iyo 7 Oktoobar 2023, iyo in 63 maxbuus ay ugu dhinteen xabsiga Israa'iil dayacaad iyo caafimaad iyo jirdil. Sida laga soo xigtay PJIG, weeraradii 7 Oktoobar ee Israa'iil ayaa la bilaabay ugu horreyntii si loo soo rogo heshiis dhab ah oo isdhaafsi maxaabiista, kaas oo maxaabiista ka xoreynaya xabsiyada la qabsiga oo yareynaya dhibaatada dadkeena. PJIG waxay ku eedeysay beesha caalamka laba wajiile ku wajahan maxaabiista Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa 10 qof ku dishay weerarada cusub ee Gaza, iyadoo 5,000 qofna ay ku barakaceen duqeynta Israa'iil ka wado Gaza.